suuradda albaqara marka laga yimaado inay tahay suuradda ugu barakada badan quraanka uguna dheer haddana weligaa ma isweydiisay magaca albaqara oo marka Soomaali loo bedelo noqonaya sac xagee ka yimid maxay tahay qisada la yaabka leh ee ku duugan magacan qisada inaan dilay adeerkiis kadibna uu alle sabab uga dhigay sac inuu fashiliyo dhagartiisii mufassiriinta quraanka ayaa qisadan si ciirar banu Israa'iil ee lagu magac daray suuradda albaqara ku fasira dhowr fasiraad oo kala duwan waxaana ugu xoog badan tafaasiirsan laba tafsiir oo hal meel isugu biyo shubanaya oo lagu fasiro qisada ka dambaysa sacan lagu xusay quraanka haddii aynu ku horeyno kan koobaad ayaa oranaysa inuu jiray nin reer bani Israa'iil ah oo lahaa hanti iyo xoolo fara badan dhalayna gabar waxaana jiray inan ama wiil uu adeer u ahaa oo uu walaalkiis dhalay wiilkan ayaa ahaa sabool aan wax hanti ah haysan haddaba waxa dhacday in wiilkan uu adeerkii ka soo doonay gabadhii uu dhalay laakiin adeerkii ayaa u diiday inuu gabadhii siiyo taasoo caro ku beertay inankan kana dhigtay mid wacad ku mara inuu dili doono adeerkiis gabadhiisana guursanayo hantidiisana uu qaadanayo waxa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah uu wiilkii u yimid adeerkiis isagoo ka dalbaday inuu u raaco qabiil kale oo uu rabay inuu ganacsi dhex maro wuxuuna ku yidhi haddii ay igu ka arkaan waxa laga yaabaa inay xaajadeeda ii fududeeyaan maadaama uu ahaa ganacsade maalqabeen ah ninkii ayaa oggolaaday inuu raaco wiilkii uu adeerka u ahaa waxayna isku diyaariyeen socdaal wayna ambabaxeen goortu waa xilli habeennimo ah markii ay xoogaa u jirsadeen deegaankii qabiilkii ay u socdeen ayuu wiilkii dilay adeerkiis kadibna uga tegay meeshii wuxuuna ku noqday gurigiisii tafsiirka koobaad ayaa leh sidan halka tafsiirka labaad uu oranayo sheeko tan u soo dhow oo ah in ninka hantiilaha ah uusan dhalin wax ciyaal ah dhaxlaha keliya ee dhaxlayeyna uu ahaa wiilkii uu adeerka u ahaa ee uu walaalkiis dhalay waxaana dhacday in wiilkii uu raagsaday ama sugi waayey inta adeerkii uu dhimanayo hantidana uu ka dhaxlayo wuxuuna go'aan ku gaaray inuu dilo kuna dilo ama meydkiisa geeyo meel deegaan u ah qabiil kale si aan looga shakin labadan qiso ayay mufassiriintu ku kala aragti duwan yihiin laakiin waxay intooda badan isku raaceen in wiilku uu bilaabay subaxnimadii inuu raadiyo adeerkiis isagoo iska dhigaya inuu adeerkii waayey ilaa uu ka yimid deegaankii ay qabiilka kala deganaayeen wuxuuna arkay iyaga oo ku aruursan meydka adeerkiis markii uu arkayba ayuu bilaabay inuu qaylo afka furto kuna eedeeyo qabiilkii inay dileen adeerkiis labadii qabiil ayaana ku sigtay inay dagaalamaan laakiin mid ka mid a goobjoogayaashii ayaa yidhi ha dagaalamanina ee u taga nebi muuse calayhi salaam isaga ayaa nebi ah idiinna sheegaya qofka dilka geystay labadii qabiil ayaa taladaasi wada qaatay waxayna go'aansadeen inay u tagaan nebi muuse si uu u kala saaro uguna sheego qofka dilka geystay waxay u tageen nebi muuse ugana faaloodeen wixii dhacay waxayna ka dalbadeen inuu u sheego qofka dilka geystay nebi muuse ayaa alle weydiistay inuu u caddeeyo qofka dilka ka dambeeyey alle subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday nebi muuse amrayna inay qalaan ama gowracaan sac kadibna qayb ka mida hilibka sacaasi ay ku dhuftaan jidhka meydka kadibna uu alle meydka dib nafta ugu soo celinayo si uu u sheego qofka dilay marka uu sheego qofka dilayna dib ay naftu uga baxayso reer bani Israa'iil ayaa la yaabay amarkii uga yimid dhanka alle iyagoona ku yidhi nebi muuse calayhi salaam miyaad nagu ciyaaraysaa nebi muuse ayaana ku jawaabay ilaahay ayaan ka magan galay inaan ka mid noqdo jaahiliinta reer bani Israa'iil ayaa intaasi kadib bilaabay inay nebi muuse su'aalo dheeraad ah sii weydiiyaan si ay mas'alada u adkeeyaan ibnu cabbaas ayaa laga wariyaa in haddii ay gowrici lahaayeen sacun ay kaga filnaan lahayd laakiin waxay doorbideen inay masalada adkeeyaan kuna madax adeygaan nebigii alle ilaahayna uu ku adkeeyey